بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنتوا أي بيش ديسمبر تاي أفريل لوطن كوني لوطنك waxaan shirkaygan jaraa'id kaga hadlayaa xaaladda doorasho ee dalka Soomaaliya ee 2020 ilaa 2021. waxaan rabaa inaan dul istaago oo wax ka idhaahdo dhowr qodob. qodobka koowaad, waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah, daneeyayaasha Soomaaliya iyo qaramada midoobay in ay u guntadaan waajibka ka saaran sidii doorasho daahfuran looga qaban lahaa dalka Soomaaliya. qodobka labaad, waxaan kaloo ugu baaqayaa dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalka ka dhacaysa inay ka fogaadaan wax kasta oo khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay doorashadu ka dhacayso si xawli ahna uga soo kabanaysa harihii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray. waxaan cid kasta uga digayaa in hanashada xilka madaxweyne loo maro waddo khaldan sida kacdoon shacab iyo durbaan qabiil, kaas oo dalka gelin kara qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni darro. waxaan soo dhaweynayaa shirka labada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ku dhex maray magaalada Gaalkacyo, mudane Siciid Cabdulaahi Deni iyo mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa cid kasta oo ka shaqeynaysa isfahamka iyo wada shaqeynta mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka. ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhankooda xasiloonida iyo amniga, kana qayb qaataan geedi socodka horumarka waddanka. waxaana dalka u rajaynayaa barwaaqo iyo nabadgelyo waarta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.